Asalaamu calaykum. Asxaabta soo dhawaada. Muuqaalkana wuxuu ku saabsan yahay ChatGPT oo aan kaga samayn doono taxane ChatGPT aan idin soo dhigay YouTube-keena playlist-giisa aan idin soo dhigay. Marka taxane ayaan ka samayn doonaa, muuqaalo badan ayaan ka samayn doonaa ChatGPT. ChatGPT-ga oo kaliya looma adeegsan karo su'aal ama weydiimo. Waxyaabo badan ayaa ku dhex qarsoon ChatGPT, waxaana muuqaalkan idinku sheegi doonaa ama muuqaalada soo socda aan idinku sheegi doonaa faa'iidooyin badan. Haddii aad channelka aad ka cusub tahay, fadlan subscribe ii saar si aad u hesho muuqaalo faa'iido badan leh. Soo dhawaada. Muuqaalkan gudahiisa waxaan diiradda saari doonaa laba qodob oo muhiim ah: sidee ChatGPT looga isticmaalaa sawirrada editing-ka ama sidee image editing-ka looga isticmaalaa, iyo sidee ChatGPT looga isticmaalo turjumaan ama translate sidee looga isticmaalaa. Labadan qodob ayaan diiradda saari doonaa. Midka ugu horeysa haddii aan ugu horeysiino waxa waaye sidee looga isticmaalaa sawirrada editing-ka ama image editing-ka sida looga isticmaalo. Sawir aan ku edit gareyn doonaa ama sawir aan ku design gareyn doonaa. Marka ugu horeyso design-ka ayaan ku marin doonaa. Haddaad soo furato plus xagga ah taabo, kadibna waxa waaye gallery-ga ayaa ku geyn doonaa. Sawirkii aad u baahnayd ayaa soo gashan doontaa. Sawirka marka aad soo gashito waxa aad rabtid ayaad hoos ku qoreysaa. Aniga waxaan ku qoraynaa background-ka waxaan u baahanahay blue ayaan dhihi doonaa. Background-ka blue ayaan u baahanahay. Gadaal waxaad ku qoreysaa corner MK. Kadib haddana waa sharxi kartaa design-ka aad u habeeyay dhihi doontaa. Design-ka habeeyay kadib color-kiisa bedel ayaan dhihi doonaa. Color-kiisa bedel ayaan dhahnay. Kadibna send ayaan dhihi doonaa. Jawaabta ayaan sugi doonaa. Waxay noo soo qoray si aan si sax ah u habeeyno sawirka. Hal waxaas ayaan u baahanahay inaan hubino marka hore magaca ereyga aad rabto inaad lagu qoro. Gadaasha waxaa laga qorayaa corner MK. Midabka cusub ee fanaanada sweater-ka aad rabto, tusaale ahaan caddaan, madow, blue iyo wixii la mid ah. Kadib ayaan ugu soo jawaabi doonaa. Madow ayaan dhihi doonaa. Haddana su'aasha labaad waan ka jawaabnay. Markaad siiso labadan qodob waxaan rabaa ka dhigi doonaa background blue, design qurux badan, qoraal aad rabto habeey. Inta kale waan sii fasaxi doonaa. Kadibna haddana wixii la soo dhahay ayaan eegi doonaa. Iyo midabka sweater-ka madow waan helay. Hal qodob kaliya ayaa ka dhiman ka hor inta aan sawirka habeyn. Qoraalka gudaheeda lagu qori doono waa yahay ereyga haddana waan soo diri doonaa. Qoraalka gudaha waan u sii dirnay. Kadib sawirkii ayaan noo soo habeyn doonaa. Sawirkii ayaan isla arki doonaa. Waa kan sidaan uga soo baxay sawirkii aan edit gareynaynay. Mar walba sidaan ayaad samaynaysaa. Qoraalkii ayaad soo gelinaysaa. Aniga sawirkaas sidaan ayaan hadda soo geliyay. Kadibna background blue ka dhig. Qoraalkaas sida gadaalkiisii mari. Sidoo waaye dharkiisa bedel ayaan dhahay. Sidaan ayuu iga soo saaray. Sidaan ayaa sawirka uga edit gareysan kartaa ChatGPT. Qaybta labaad ayaan gali doonaa oo ah translate-ka ayaan gali doonaa. Midda labaad, sidee ChatGPT translate looga isticmaalaa. Hadda ayaan ku tusi doonaa. Marka ChatGPT aad soo gasho
waxaad meesha textiga waxaad ku qoraysaa Englishkii aad u baahneyd ayaa ku fasiri doonaa. Kadibna hoos ayay soo day doontaa. Waxaad ku qoraysaa ii fasir ama macnee af Soomaali ayaa dhahaysaa. Af Soomaali kadibna send ayaa dhihi doontaa. Kadibna turjumaad ayuu ku leeyahay. Waxaan ahay qof dadaal badan oo leh dhiirigelin kana farsaxan barashada xirfadaha cusub. Waxaan aaminsanahay inaan wax barado oo kuu sheegay. Marka haddii haddana aad u baahan tahay inaad asagan haddana Soomaali aad ugu beddesho English, kadibna haddana qoraalkii ayaa soo dooranaysaa. Qoraalkii ayaan soo dooranaynaa. Qoraalkii haddana haddii aan soo doorano kadibna qoraalkii ayaan haddana soo bandhigi doonaa. Waxaan sii dhihi doonaa iigu beddel Kiswahili. Kadibna haddana waxa kuu soo beddeli doonaa luqadii kale ahayd Kiswahili ayaa kuu soo beddeli doonaa. Kiswahili ayuu ku leeyahay mimi namoota miani ayuu ku leeyahay. Marka waa kuu fasiray. Haddana qoraalkii haddii Kiswahili uu ahaa haddana ka dhigno Englishkiisa aan u sii laabano. Kadibna waad qori doontaa u beddel ayaa dhihi doontaa. English ayaa dhihi doontaa. Haddana English ayaa dhihi doontaa. U beddel English ayaa dhihi doontaa. Kadibna midii hore ayaan ku soo geli doonaa. Hadda meeshii aan ugu bilaabnay waxa ahayd short phrase paragraphs ayay dhahay. Waa ka haddana waa ku soo celinay. Waa kugu beddelay. Sidaas ayay ugu beddeli kartaa luqad walba aad rabtid waaye. Haddii haddana soo qaano midii ahayd Kiswahiliga kadibna u beddel aan dhahno China ayaan dhihi doonaa. China ayaan kugu beddelay. Haddana waa ka China ayaa kugu beddelay. Haddii aad China haddana soo qaadato haddii aan soo qaadano Arabi u beddel ayaan dhihi doonaa. Arabi ayuu u beddel dhihi doonaa. Arabiga ayaan u beddeli doonaa. Haddana u beddel Arabi ayaan dhihi doonaa. Arabi ayaan dhihi doonaa. Arabi u beddel ayaan dhahnay. haddana waxaan u bedelnay أنا شخص مجتهد ولد دافع قوي أحب أتعلم المهارات الجديدة ayuu ku leeyahay haddana waa kaa sidaas translate oo isticmaali kartaa haddii aad rabtid sawir translate waad u isticmaali kartaa sawir ayaan soo gelin doonaa translate oo u bedeli doono sawirkan hadda soo dooranay English waaye Soomaali ugu fasir ayaan dhihi doonaa u bedel ayaan dhihi doonaa midda u bedel Soomaaliya kadibna sawirkii san haddii aad dhahday waa kuu fasirayaa kadibna wuxuu ku leeyahay kuu sheegi doonaa sawirka mid ayaa kuu soo bandhigi doonaa wax walba waa kuu sheegi doonaa hadda waxa waaye English waaye hadda kadibna Soomaali ayaa halkan kugu sheegi doonaa sidaas ayaa translate looga isticmaalaa marka taxanahan ChatGPT oo uu soo badan doonaa haddii aad xiisaynayso kanaalka subscribe saaro gambalaalkana furo fiidiyoyana noo share garee si aan meel dheer u gaarno marka taxanahan waan soo badin doonaa haddii aad kanaalka aad ku subtayna subscribe saar aad mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh